kooxda Horseed ayaa maanta sameysay tababarkeedii ugu dambeeyay isugu diyaarinayaan kulanka play-off-ka ee maalinimada Isniinta la ciyaari doonaan kooxda Muqdisho City Club. Dhammaan ciyaartoyda kooxda ayaa ka soo muuqday tababarka ay bixinayeen macallimiinta kooxdaasi oo hogaaminaya Cabdilxamiid. Kadib markuu soo dhamaaday tababarka, Muqdisho Capital Sports waxaa la hadlay hogaamiyaha kooxdan oo ka hadlay rajada ay ka qabaan sanadkan 40 sano kadib in kooxda Horyaal ay kor u qaado Somali Premier League. waa run ahaantii arrin oo farxad noo keenayso dhammaanteen staff ahaan iyo ciyaartooy ahaan iyo maamul ahaanba dhammaan inaan kooxdan magaca weyn cawi maalin u soo hoyno guushaas haduu Ilaahay yiraahdo. diyaar garowgeena ciyaarta alxamdulillah meel fiican noo maraya. ciyaartooyda si fiican u shaqeynayaan waan ku faraxsanahay alxamdulillah meesha hawsha noo marayso. Dhinaca kale qaar ka mid ah ciyaartooyda ugu horeeyay kabtanka kooxdaasi Ibrahim Resta ayaa dhankooda ka hadlay rajada ay ka qabaan sanadkan kulanka kala baxa inay guul ka gaaraan kuna guuleystaan Somali Premier League markii ugu horeysay 40 sano kadib. ayaa rajeynayaan kooxdan inay kor u qaadaan horyaalkoodii ugu horeeyay kooxda Horseed oo sanadkan soo bandhigtay ciyaaro qurux badan. runtii diyaar garowgeyn anaga mar walba waxaan isku diyaarinaa sanadka uu ku noqdo sanadkeena uu ku noqdo diyaar garowgeyn waxaan rajeynayaa sanadka inuu nagu saacido sanadkeena uu noqdo waxaan rajeynayaa gamekan nagu soo foodlanay in aan guuleysano. والله هرتورة بنتا مو عيارين والبو كوحدة كترسن همجي سوين وإنه جامبيون نقدر نانتي كوحدة مدبدن كوب مقادن أنا كنا أؤمن أنا كوب كان قادن لكن جيم هذا كان سويه وأنا وديار قروني وحرجت دونا جيم كاس جيم فوضى إنه نقد إن شاء الله. أي ضمانتن كالبر محل كوحدة هرسد وحبه وقبنا كوب وحرجينا إن شاء الله إن هوريال كسنة كان وسنة كنا نقد إن شاء الله. hamigooda sanadkan inay rumeeyaan ayaana ah 90 daqiiqo dagaalan ah la gali doonaan kooxda Muqdisho City Club oo dhankeeda dab yarshideenin oo sanadkan soo bandhigtay ciyaaro qurux badan. labada kooxood ayaana kulankoodii ugu dambeeyay ku dhameystay barbaro eber ah. labada kooxood oo isku dhibco ku dhameystay horyaalkan gabi ahaan kulamada la soo ciyaaray ayaa ka dhigtay in kulan play-off loo dhigo labada kooxood ee ciyaaraan maalinimada Isniinta ayaa lagu madalsan yahay ciyaar ka dhici doonta garoonka Konis.